la qaaday xagee wasiirka ah maba magacawneen miyuu ku riyooday in la qaaday meel la geeyay xataa war uma haynin shuubaa dhashay farmaajo iyo Fahad Yaasiin waa laba tuug khiyaano qaran bay geysteen shacabkii Soomaaliyeed bay khiyaameen hooyooyinkii Soomaaliyeed bay khiyaameen anigoo cabdi dhaantaa cidna ima soo dirsanin cidna uma shaqeeyo codkayga ayaan ku socdaa haddana waan ogahay jalaafooyin badan in la damacsan yahay oo la doonayo in la xidho oo la doonayo in shirqoolana loo sameeyo oo la doonayo in dilal qorsheysan loo sameeyo nalaga takhaluso si arrimahan ka daata aan uga hadin arrintaasna way jirtaa 100% oo ku kalsoonaa oo waa wax jira weeyaan maxay tahay marka sababta nin hooyadii iyo aabihii toona iyo walaalkii toona la ayna waxba ka jirin meelna ayna uga maqnayn oo la jooga in uu maanta nagu tilmaamo dad aan waxba maxaa la dhahayay warkooduna waxba ka jirin waa jaahilnimo waxaan leeyahay shuuba idin dhashay ciyaal suuqiin baatiin farmaajana waa tuug 20 bari ka bacdi mise 12 bari ka bacdi madaxweyne Soomaaliya ma aha waxa weeyaan khiyaano qaran buu sameystay walaalkeena meel ha ku sheego walaalkeen meesha ha ku sheego yaradii Soomaaliyeed oo kale la midkaan meel ha ku sheego waraa dadkan kadaata dad baa dhalay dad baa fooshay 29 bilood baa caloosha lagu waday silic iyo rafaad iyo waxa lagu soo koriyay iyo maxaa la haysaamileel iyo dhibaata lagu soo koriyay waa loo soo dhintay hooyooyin baa u soo dhintay si fudud in lagu digto maxaa la ilaa dable oo daraad ka yimid qurbaha ka yimid intuu TV-ga qaranka soo fadhiisto inuu beenaalayaal baatiin xagee ka timaad arrintaas soo doqonnimo ma doqonnimati ugu weyneed weeyaan kulligii waxa meesha jooga waa doqonin waa caloosha u shaqaystayaal shuubaana dhashay waana tuuga dhashay meesha isugu timid waxayna meesha u fadhiyaan khiyaano qaran dhalinyarada Soomaaliyeed oo maxaa la khiyaamay oo aniga walaalkay la dhashay uu ku jiro oo lagu khiyaamay maxaa la in qadar la geenayo aniga idin la hadlayo waxbaan ku ogaa markii la qaaday qadar baa la geenayaa baa leeyahay tababar fiican baa la siinayaa baa leeyahay sanad iyo 7 bilood bay maqaneen sanad iyo 7 bilood qof aan soo hadin xagee rabaa inuu difaaco marka nin sanad iyo 7 bilood waalidkii iyo dadkii la dhashay ka maqnaa hadhow toole marka wadanka lagu soo celiyo sidee qaran Soomaaliyeed ku difaacaya annagii baa hadda dhibanayaal oo seexan leh oo hurdalaan nagu dhacday sidee la rabaa in lagu difaaco siyaasa qof bini aadam ila looxmaan dad bini aadam oo dad dhaleen see lagu qarinaya maceeba dhalinyaradan tadaata dawladdu inay intay ka hadasho oo intay TV-yada afkooda ku hadla intay ka haystaan oo meesha dhalinyarada lagu tababaray inay tagaan maxal hadii ay nool yihiin dhalinyarada intii loo tago in video laga soo duubo dhalinyaradii oo shacabka Soomaaliyeed anaga iyo waalidiintii dadkii nala dhashay iyo dadkii wax dhalay la qanciyo maceeba xagee ka sadhaa dadkaas sax xagee ka shaqeyn doonaa ma dhagaxba maxay yihiin marka dadkaas say ku dhici kartaa in la qariyo oo la duudsiyo say ku dhici kartaa anigoo ogsoon oo dareemi karo tusaalahan aniga waxyaabaha walwalka igu riday waxa kamid ah odaygii wiilkiisa dhintay tababarka qofka waa loo qadanaa ma dhagaxba maxay yihiin marka dadkaas say ku dhici kartaa